Samsung, Hyundai, LG iyo Kia marka laga yimaado inay yihiin shirkadaha ugu baaxadda iyo magaca weyn adduunka, haddana waxaa jira hal sir oo kulmiya shirkadahani. sirtaasi oo la dhaho Kuuriyada Koonfureed waxay ka mid ahayd dalalka ugu jahliga iyo saboolnimada badan adduunka. waxay sanado badan la daalaadhacaysay dagaalkii sokeeye ee ugu foosha xuma adduunka ilaa ay markii dambe u kala jabtay laba dowladood. laakiin maanta waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah afarta dal ee ugu dhaqaalaha badan Aasiya. sidoo kalena waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ugu waxbarashada fiican adduunka, waxayna muddo aad u kooban gudaheed ku sameeyeen mid ka mid ah mucjisooyinka dhaqaale ee aadka uga yaabiyey aadamaha. muuqaalkeenna maanta daawadayaal waxaan ku soo qaadanaynaa sheekada dal shalay ay dagaalada sokeeye hilfaha u laabeen, laakiin u babac dhigay duruufaha dagaalada, sameeyeyna guul aad loola fajacay, innagoo baranayna sida geed yar oo ubax ah oo uga dhex bixi karo kayndan oo holcaysa. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. sanadkii 1945 oo ku beegnaa dhammaadka dagaalkii labaad ee adduunka ayay Kuuriyada Koonfureed iska riday heeryadii gumaystaha iyadoo ka hoos baxday gumaysigii Jabaan oo 35 sano gumaysanayay dalkaasi. farxadda iyo reeraynta xorriyaddu ma ahan mid ku sii waarta dhulkaasi, iyadoo muddo yar uun kadib xornimadaasi loo kala qaybiyey dhulkii baaxadda weynaa ee Kuuriya laba dowladood oo ay kala maamulaan labadii quwadood ee xilligaasi ku loolamayay gacan ku haynta adduunka, Midoogii Sofiyeet iyo Maraykanka. waxaana curtay laba dowladood oo la kala dhaho Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi. tallaabadani ayaa sabab u ahayd in Kuuriya uu ka curto mid ka mid ah dagaaladii sokeeye ee ugu foosha xuma adduunka. We are united in detesting communist slavery. We know that the cost of freedom is high, but we are determined to preserve our freedom no matter what the cost. 3 sano oo ay socdeen dagaaladaasi waxaa ku nafwaayay dad kor u dhaafaya 5 milyan oo qof, wuxuuna noqday dagaalkaasi mid si gebi ahaana u soo afjara walaaltinimadii iyo wada degganaanshiyihii Kuuriyaanka. Kuuriyada Koonfureed nasiib uma yeelan inay hesho kheyraadka ay heshay dowladdii dhigeeda ahayd ee Kuuriyada Waqooyi oo la kali noqotay warshadihii ka jiray xilligaasi dhulkaas, iyo sidoo kale 80% dhalintii korontada oo ay Kuuriyada Waqooyi ahayd goobta 80% Kuuriyaanku ka heli jireen tamarta korontada. taasi oo ka dhigtay Kuuriyada Koonfureed dal u muuqday mid aan rajo weyn lahayn, muddo yar kadibna cidlo ku soo dhici doona. waxaa lagu tiriyey xilligaasi mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan adduunka, iyadoo dumarkoodu ay iibin jireen timahooda si aysan carruurtoodu gaajo ugu dhiman. dhul sabool ka ah nooc walba kheyraada iyo dad jaahil ah oo aan aqoon lahayn, 90% ka mid ahna ay ku nool yihiin mucaawinooyinka Ameerikaanka, ayay ku sumayneed Kuuriyada Koonfureed, taasoo ka dhigtay dal aan rajo weyn laga qabin inuu wax horumar sameeyo. madaxweynihii Kuuriya ee xilligaasi waxaa lagu magacaabi jiray Lee Song-man. si uu xal ugu raadiyo dhibaatadii dalkiisa, wuxuu bilaabay samaynta 2 kacdoon oo uu ka mid ahaa wax soo saarka beeraha iyo kobcinta dalagga, iyo kan kale oo ahaa kan ugu muhiimsan oo uu ku horumarinayay waxbarashada dadkiisa, isagoo khasab ka dhigay in ilmo walba loo diro iskoolka, dowladduna ay damaanad qaadayso waxbarashadiisa, taasoo kor u qaaday 10 jibaar inay kobacdo aadidda iskooladu, kana dhigtay 96% ilmihii Kuuriyaanka kuwa waxbarta. isbeddeladani ayaa horseeday in Kuuriya ay hesho kumanaan aqoon-yahan ah, laakiin gurashadii mirihii isbeddelka ma noqon kuwo dhaqso lagu gurto, maxaa yeelay beeruhu ma ahayn kuwo ku filan si loo sameeyo horumarkii dhaqaale ee ay ku taamayeen Kuuriyaanku. wuxuuna ahaa dakhliga qof ee Kuuriyada Koonfureed mid aad u hooseeyey, halka 40% ay ahaayeen kuwo ka hooseeya diilinta saboolnimada. laakiin sanadkii 1961 sida caadada u ahayd dalalkii saboolka ahaa xilligaasi, waxaa afgembi ciidan kula wareegay talada dalkaasi Park Geun-hye. askarigani ayaa xambaarsanaa fikir iyo riyo ka duwantii lagu yaqaanay madaxdii afgembiyada ku imaan jiray xilligaasi, isagoo sabab u ahaa curashada mid ka mid ah mucjisooyinka dhaqaale ee ugu yaabka badan adduunka. bilowgii xukunkiisaba wuxuu yagleelay golaha qorsheynta dhaqaale ee Kuuriya, sidoo kalena wuxuu jideeyey siyaasad lagu taageerayo warshadaynta waxyaabaha yaryar si ay u kobacdo wax dhoofintu, isagoo sidoo kale curiyey qorshe yoolkiisu yahay samaynta kobac dhaqaale oo gaaraya 7.1% muddo 5 sano gudaheed. lambarkani ayaa noqday mid il jees ah ay ku eegaan Ameerikaanku,
iyagoo u arkayay mala awaal iyo riyo nafta been lagu sheegayo. laakiin arrinta dhacday ayaa noqotay mid xitaa Kuuriyaanka filan ku noqotay. waxay sameeyeen kobac dhaqaale oo kor u dhaafaya 8.9%, halka qorshahoodu markii hore ahaa kaliya inay sameeyaan 7.1%. arrintani ayaa noqotay mid aad uga yaabisay adduun weynaha, sidoo kalena fajac ku noqotay Ameerikaankii shalay dhayalsanayay riyada Kuuriyaanka. ma noqon Kuuriyada Koonfureed mid halkaasi ku hakata, balse kobac dhaqaale oo sanad walba gaarayay 15% iyo dhoofinta wax soo saarkooda oo kubacayay sanadkiiba 36% ayay Kuuriya ku tallaabsanaysay sanadba sanadka ka dambeeya. guulahani istabajooga ah ayaa ka dhigtay Park mid u hanqaltaaga in dalkiisu uu noqdo dal sameeya tiknoolajiyada si ay ula tartamaan dalkii dhigooda ahaa ee Kuuriyada Waqooyi, taasoo ka dhigtay sanadkii 1965 mid u jihaysta dalkii shalay gumaysan jiray ee Japan, isagoo meel iska dhigay dhammaan dhibaatooyinkii hore ishana ku hayay mustaqbalka dalkiisa. yoolkiisuna ahaa inay sameeyaan waxa ay samaysay Japan oo xilligaasi caan ku ahayd tiknoolajiyada, laakiin ay ku sameeyaan qiimo ka jaban iyo waqti ka yar. waana arrinta rumowday 2 sano un kadib markii ay samaysay Kuuriyada Koonfureed gaarigii ugu horeeyay ee dalkeeda lagu sameeyo ayna samaysay shirkadda Hyundai. sidoo kale dhammaadkii 60meeyadii waxay noqotay shirkadda Samsung shirkadda ugu tayada sareysa ee samaysa telefishinada adduunka oo dhan. kobacaasi warshadaynta ee ay ku tallaabsanaysay Kuuriyada Koonfureed maalinba maalinta ka dambaysa waxaa barbar socday maamul siyaasadeed oo kalitalisnimo ku dhisan, iyadoo Park waaqac u bedelay oranaysay maxay faa'iido u leedahay dimuqraadiyaddu afafka hajaysan. wuxuuna sanadkii 1972 mar saddexaad ku guulaystay doorashadii dalkaasi, isagoo markan curiyey qorshe cusub oo uu dalkiisu isugu bedelayo dal yeesha warshadaha waaweyn ee maraakiibta iyo biraha lagu sameeyo. qorshahani oo 10 sano gudaheed ka dhigay Kuuriyada Koonfureed dal ay ku taal shirkadda labaad ee ugu baaxadda weyn adduunka oo dhan ee samaysa maraakiibta, sidoo kalena soo xareysa faa'iido sanadeed gaaraysa $26 bilyan sanadkiiba. dhammaadkii sanadkii 1979 waxaa la shirqoolay madaxweyne Park, waxaana afgembi kula wareegay talada dalkaasi Chon Do-hwan. afgembigani ayaa horseeday curashada qalalaaso siyaasadeed oo uu sabab u noqday dib u dhac ballaaran oo ku yimid dhaqaalihii kobcayay ee dalkaasi, iyadoo uu gadaal u noqday 6% iyo sidoo kale sicir barar kor u dhaafayay 4%. laakiin intii u dhaxaysay sanadkii 1986 ilaa 1988 waxaa dib u hagaagay dhaqaalihii dalkaasi, waxayna isku beddeshay Kuuriyada Koonfureed dal ka madax bannaan xukunkii afgembi ee ku salaysnaa kalitalisnimo, iyadoo u jihaysatay in shacabku ay codkooda ku soo doortaan cidda matalaysa. marka aad akhrisatid daawade taariikhda dhaqaale ee dalka Kuuriyada Koonfureed waxaad arkaysaa in horumarka uu ku gaaray dalkaasi nidaam loo yaqaano Shaibol. magacani ayaa loo yaqaanaa shirkadaha waaweyn ee ay maamulaan hal qoys sida Samsung, Hyundai iyo LG. nidaamkani ayaa bilowday sanadkii 1961 isagoo si guud loola jeedo in awoodda shirkaduhu ay ku tiirsan tahay awoodda dawladda, waxayna dawladdu heshiis la gelaysaa shirkadaha ay leeyihiin qoysaska waaweyn iyadoo ku garab istaagaysa dhaqaale, sidoo kalena hoos uga dhigaysa canshuuraha. kan guulaysta waxay sii kordhinaysaa taageeridiisa, halka kan guuldaraystana ay kala noqonayso taageeradeeda. nidaamkani dhaqaale ayaa ka dhigay shirkadaha gaarka loo leeyahay tiirka dhaqaale ee ay ku taagan tahay ilaa maanta Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Koonfureed maanta waxaa lagu tiriyaa dalka ugu horeeya ee soo saara agabka laga sameeyo taleefanada adduunka oo dhan. sidoo kale waxaa ka jira mid ka mid ah nidaamka dimuqraadiyadeed ee ugu fiican adduunka, sidoo kalena waa dalka keliya ee aad ka heli kartid nidaamka loo yaqaan WiMax Access oo ah nidaamka internet ee ugu xawaaraha sareeya adduunka oo dhan, adigoo awood u yeelan kara in filin soconaya dhowr saacadood aad wax sikin ka yar kula soo degto. waxay ku suman tahay shirkadaha waaweyn ee ku yaala dhulkeeda sanad walbana loolanka ugu jira samaynta gawaadhida iyo moobilada ugu tayada sareeya adduunka. dhaqaalaheeduna wuxuu sanad walba shaqaalaysiiyaa dad kor u dhaafaya 180,000 ilaa 300,000 oo qof, iyadoo ka soo xareysa wax dhoofinta dhaqaale kor u dhaafaya $560 bilyan sanad walba, halka lacagta ugu hooseysa ee ay shaqaaluhu ku shaqeeyaanna ay tahay $7.40 saacadiiba, oo u dhiganta $1,500 bishii. Kuuriyaanku ma helin mucjiso, si filan waa u beddeshay waaqicii adkaa ee ay ku noolaayeen. waxay nagala sinnaayeen waayihii hore ee faqriga iyo gumaysiga ku salaysnaa dagaalada sokeeye
iyo ku tiirsanaanta mucaawinooyinka iyo ilaalada ajnabiga, laakiin maanta waxaa inoo dhexeeya farqi la mid ah farqiga u dhexeeya maalinta iyo habeenka.